وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هبه وناكسن soo dhawaad. Inta gadaalka soo gashay soo dhawaada dhammaantiin noo sii sheeri karaya inta uu gaarayo. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Meel baad adduunyada ka joogtaan ummadda Soomaaliyeed habeen wanaagsan qof walba xilliga ay u tahay wanaagsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel walba aad koonka caalamka kaga nooshihiin habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay. Intaa dabadeed waxaan u soo galay waxaan daawaday maanta xilli horaan daawaday laakiin waqtiga ii saamixi waayay inaan ka hadlo. waxaan ka hadli doonaa horta siyaasadda guud ee Soomaaliya anagoo dul marayna iyo wixii hadda cusub laakiin especially waxaan rabaa inaan halkaan kala hadlo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa wuxuu ka hadlay qodobo kala duwan oo maanta uu kaga hadlayay xaaladda dalka uu marayo arrimaha siyaasadda especially wuxuu ka hadlay ciidanka qaranka Soomaaliyeed inta dabadeed horta marxaladii ugu dambeeyay dalka hadeertan uu marayo siyaasadda waa lagu kala adkaan doonaa waqtigeeda un baa dhiman Fahad Yaasiin uu soo galay ma soo galin uu soo galay doonno si sheer gareeya ayaa la isla dhex maraya prime minister kana nin waa shay ayuu u egyahay qaabkiisa markaad fiirisid dabac sumaysan oo kale ayuu u dhaqmayaa prime minister Roble inta dabadeed waa lagu salaam gadaal ka soo gashay laakiin waa lagu kala adkaan doonaa siyaasadda Maxamed Abdullaahi Farmaajo waa chief of the chief commander Maxamed Abdullaahi Farmaajo waa taliyaha ciidanka ugu sareeya dalka weeyaan xilna ma wareejin karayo shalay daraad wixii ka horeeyay maalmahan gabi waama ka soo hadalnay taa waan ka daalnay markii nin asaga doorta uu yimaado markii nin la soo doortay markuu yimaado ayuu xilka ku wareejin karaa markaasuu amniga guud dalka ku wareejin karaa caanka si asaga loogu wareejiyay ninka la soo doorta haduu yahay Maxamed Abdullaahi Farmaajo haduu qof kale yahayna prime minister ilaa uu ka soo dooranayo Roble meesha sii joogayo haduu wanaag iyo qiimo iyo sharaf uu leeyahay dalkan doorasho uu gaarsiin karayo inta kadib waxyaabo muhiimka ah oo hadeertaan ay tahay warar fara badan ayaa la soo dhex maraya la leeyahay Ikraan hooyadeedii Nairobi ay ku maqan tahay hadii hadalka run uu yahay haddii ay jirto dad maxaan ku yiraahdaa loo shaqeynaya sirdoon baa horta Kenya jooga Mossad baa jooga MI16 ka jooga MI5 ka Ingiriiska jooga sirdoon reer galbeedna hadday kugu shaqeystaan si aadan biri kamaan aadan u hadlin ay cirbid ku durayaan waa howlaha ay dhaqanka ay ku dheerayaan waa dhaqankooda noo sii sheeri gareeya taas waa taati siyaasadda ilaahay marxaladahan hadeertan aad ku adag dalka ilaahay ka saaro inta kadib wixii jiro ilaah baa og inay dalka ka tagtay Ikraan hooyadeeda inay joogto inay maqan tahay cid shay kareysa ma jirto laakiin wararka say u badan yihiin iyo fiidiyoda qaar aan ugaan arkay nin baa ka hadlayay al-umum geeri iyo nolol marna ma qarsoomaan haddii qofka xilliga aanan la jarjarin sidii maxaan ku yiraahdaa Jamaal Khashoggi lagu sameeyo oo kale safaaradii amba qonsuladii Sacuudiga labadii bishii October 2018 ee magaalada Istanbul ka dhacday oo kale hadaan qofka lagu sameeyna aashata lagu shubin jirkiisa geeridiisa ma qarsoomayso xitaa hadii la waayo qofka geeridiisa ma qarsoomayso xaqiiqada waa la ogaan doonaa taa horta waa taa waxa ii soo hertay tan uu Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhawaajiyay Soomaaliyay Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa madaxweynihii kumeel gaarka marka laga baxay dalka Soomaaliya loo doortay ii sheer gareeyay message-kan muhiim weeyaan cataladan marka la doortay kadib xilka Sheekh Shariif ku wareejiyay waan ognahay dalka meesha uu gaarsiiyay iyo awoodii karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed sida loogu tuntay iyo qaabka ay adduunyadu qaarkeeda ay dalkeena Soomaaliya kula dhaqmeen ama ay nagu la dhaqantay waad arkayseen heer waxaan gaarnay in la yiraahdo Soomaaliya ciidanka ayaga loo tababaray waa in tirkoob lagu sameeyo wax loo ogol yahay oo kaliya in loo sameeyo dawladdan Ingiriiskana hordhac u aheetaa inta kadib
ugu dambeyn sideedii bishii Febraayo 2017 ayay ummadda Soomaaliyeed waxay tamaninayeen ay weligood raadinayeen farmaajo markii la doortay isbedel weyn baa yimid isbedel weyn markuu yimaaday kadib ciidankan federaalka Soomaaliya qaybihii kala duwan noo sii sheergareeya qaybihiisa kala duwan wuxuu soo maray marxalad mar rabo inaan ka hadlo cid walba way ogtahay meelaha ay kala joogaan iyo qaabka ay u kala toobrayeen iyo waxay tahay dawladda naga saaciday iyo mushaar bixintooda iyo dhaqanka okay waxaan daawaday oo arkayay xasan sheekh maxamuud ma arkayo message dad ii soo qoraysaan wax iima soo baxay qoraalka wuu istakaatay telefoonkan umaleynaya garan mayo waxaan arkay aan daawaday caawa wuxuu yiri ciidanka qaranka Soomaaliyeed yaan la idin adeegsanin ha u shaqeeynin wa alaykum salaam laki afgooy haddana arkaya qoraalka wuxuu yiri ciidanka qaranka Soomaaliyeed yaan la idin adeegsanin ha u shaqeynina dad gaar ah waxa waajib idin ka saaran iyo arimo kale oo ciidanka ku saabsan oo xasan sheekh maxamuud ayuu asaga caawa ka hadlay inta dabadeed xasan sheekh maxamuud maalintii la doortay inta gadaal ka soo gashay salaanta waa idinka qaadano si sheer gareeya xasan sheekh maxamuud maalintii la doortay horta ciidankan oo asaga ka hadlay intaanan aniga wa alaykum salaam faad noo si sheer gareeya intaan aniga ka hadlin xasan sheekh maxamuud bal wuxuu yiri idinku dhageysta eena daawada federaalka awgiis waxaan ka badbaadnay in ay jirto hal meel oo uu dalku ka burburi karo dhammaantiin ciidamada qaranka sida waxaan leeyahay mas'uuliyadda ugu weyn ee xilliga kala guurka adinka ayay idin saaran tahay waana midda amniga oo ay ugu horeyso la dagaalanka cadowga nabadiidka oo lagu yaqaano ka faa'iidaysiga marka ay xaaladahan oo kale taagan yihiin labaad waa in aad iska hubisaan cidda idin amraysa iyo cidda hawl idin diraysa iyo howlgalka la idin diraayo waxa uu yahay waxaa si gaar ah u xasuusinayaa taliyayaasha ciidamada in ay ka fogaadaan ku milanka siyaasadda iyo dana gaar ah ciidanka loo adeegsado oo muwaadiniin aan waxba galabsanin la dhibaateeyo مسؤوليتاس ومن شخص أديك أيين دوشة كسران تاي تريه وادعوتين وادن دقيستين قاركين لقيا ما أنت نتصور وأركتين دنبالك الأمانة صور دقي وعلى السلام ده كذا القصة نوسي شير جريه حسن شيخ محمود محا عيدن كجله عيدن كقرن كمحا كجله حسن شيخ محمود ciidanka qaranku miyeenan ahayn kuwii asaga uu bahdilay ciidanka qaranku miyeenan ahayn kuwii asaga ku yiri $100 hadaad haysatay hadaad adigu u baahan tahay weelkan waliba hadii lagu heli karo dikal albaabka ka dag get out of the door xasan sheekh maxamuud miyeenan ahayn ninkii ciidanka qaranka Soomaaliyeed intuu soo hubeeyay ya oo ciidan military ah wuxuu yiri taliyaasha ciidamada cidda idin amraysa عدة إذن أمري سواء إنها تسكهو بسان أيو يري حسن شيخ محمود أنت كذلك كسوق إسلامته وان كقاعدة وحو يري ذاتك إذن أمري تلياش عيدنك وإنها إذنكو إسؤغاتان أيو يري إذا أمرك إذن سينيسا حسن شيخ محمود عيدنك قرنك الصوماليات أو ميليتري أهوليبو أيغو توتيه كودغي نين والبشار إسروال يكبطعس أيغو ستا iyo hubkii dawladda federaalka Soomaaliyeed intuu ku soo hubeeyay ayay ka soo bilaabeen isbaarada magaalada xamar banaankeeda ilaa afgooy laga yimaado afgooy ka bilaabanaysay 2015 14 13 16 dagaaladii baana ee ka taagnaa ama ka socday gobolka Shabeellaha Hoose waxaa lagu soo hubeeyay military haddii aad la hadashid amba ciddii ayaga la hadla amba isku day hor fariista dawladdu waa dawlad federaal locda horteeda baroona socday aray ka leexo wuxuu yiri
waxay dhihi jireen ciidankaasi waxay ku soo galeen carcar gobolka shabeellaha hoose ayay ku soo galeen isbaara ayaa meel walba u taalay ilaaha u naxariistay general Gobalan in la yiraahdo ayaa ciidankaasi mas'uul kaga ahaa ee gobolka shabeellaha hoose maalinta ay yimaadeen hablihii lagu kufsanayay ceel wareego hablihii lagu kufsanayay afgooya carbiska inta u dhaxaysa hablihii lagu kufsanayay lafoole kuwii lagu kufsanayay siinka dheer kuwii lagu kufsanayay maxaa tradish iyo calamada ya kuwii lagu kufsanayay ex control afgooye oo cali garoobyada la geli jiray ciidankii militariga soo meehan isbaarada dhiganayay adigu aad u diiday $100 mushaar waliba hadii lagu heli karo hadaan lagu heli karin iska bax walaalow ilaahay meel kale ka kaasiyo ad adigu laheed ciidanka qaranka soo meehan kuwii adigu aad ku tiri ruuxaan adiga aad u sameysatay kuwa adiga gaarka ku ahaa markuu wiilkaad adeerka u aheed general Turyere oo generalnimada ku qaatay habeen iyo maalin tobar uu soo qaatay wadan uu seminar u tagay xero uu galay anaga aanan ogeyn umada Soomaaliyeed aanan ka warqabin adigu aad maxaan ku raad garaadada adiga aad ku taxday soo ma ahayn Yusuf Maxamed Siyaad inda cad ninka saaxiibkii ahaan jiray general Gobalan oo qarax lagu labeegsay 2018 lagu dilay magaalada Muqdisho soo ma ahayn ninka ku xasuuqayay ceel wareego iyo number 50 soo ma ahayn Gobalan oo adigu wakiil aad kaga soo dhigatay ciidanka militariga soo ma ahayn kuwii beeraha galeyda iyo cambaha guranayay cid ay ku dhex arkaan naag haday tahay ku dhex kufsan jiray ciidanka qaranka soo ma ahayn kuwii adiga aad ku tir amar buuxu ku siisay cid walba gobolka shabeellada hoose idinkaga hor yimaada iska dhiciya ciidanka qaranka soo ma ahayn kuwii adigu aad tiri waxa tiri gobolka shabeellaha hoose waa dagaan deg oo biyaha ay ku soo hooreen oo Soomaaliya oo dhan u soo hooyatay gobol dadkii lahaa jooga beera kule guriga kule abka ab degan generationkii boqolaad iyo kuwii soddonaad iyo kuwii 80aad ay degan yihiin oo in 18 ka soo bilaabanay soo mehnad ciidan aad u soo adeegsatay ciidankan hadeertan joogma adiga dareeska u gada ma adiga tababarkooda bixiyay ma adiga juhdi ku bixiyay ma adiga garaadooyinka maanta la siiyay adiga siiyay ma adiga ay dhikaarada u sameeyay nidaamkan idishbiliinkan ay leeyihiin oo feelalka ay leeyihiin oo galfeel qof walba uu leeyahay caafimaadkii iyo dhirirkii iyo xogtii oo dhameystiran ma adiga u sameeyay kuwii adigu aad dayacday oo lacagtoodii adiga kaalmo shidaal adiga aad ku sameysatay Soomaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud cidaan ku garanaynin u hadal cidii qabyaaladku ku taageeraysan adiga ay ku jirtaa jahannam isla aad doontaan horta ciidan hadaad soo hadal qaadid marqaatiga nool waa aniga gobolka shabeellaha hoose waxay ka geysteen militarigii adiga aad soo dirtay Gobalan la adiga aad u soo dhiibtay waalaikum salaam inta gadaal ka soo gashay Xasan Sheekh Maxamuud ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta siday ahaayeen bal daabo ha isku dhadhijinin adigu ma tihid ninka maanta dalka madaxweyne ka ah ha isku dhadhijinin taliye aadan ka hadli karin sarkaal bad aadan ka hadli karin askari ba aadan ka hadli karin meel kaaga banaan ciidanka qaranka adiga aad kaga hadashid caawa ma ba jirto Xasan Sheekh Maxamuud koox abaaraysan oo aboor socda oo kala ahaa oo daalimiin ahaa oo tuuga burcad ahaa ayaa adigu ku daba socday mushaarkii ciidanka qaranka dhisitaankoodana adiga iyo kooxdaadii ayaa wada qaybsaday oo dam isku siiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo caawa adigu leedahay mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo roobla adiga u dhiibay xilka waalaikum salaam aan iisha inta gadaal ka soo gashay salaanta idinka qaad noo sii shargaray mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adiga xilka u dhiibay ra'iisul wasaare Rooble haddana waan ka qaaday kaama yeelayo ayaa tiri afkaaga waxa soo dafay lahjadaada ninka dareemaya amba af Soomaaligaaga afkaaga waxa tiri amnigii doorashada adigoo afkaaga soo qaban raba waxaad u wacatay amnigii guud ee dalka laguma wareejinin amnigii guud ee dalka adiga wareejin lahaa cid lagu wareejin lahaa adigoo waqtigaaga dhacayood 6 bilood ku darsatay ayaa waxaad moodaa in aad safiir magacaabaysay oo aad safiir soo dhaweynaysay oo aad taliyaal kala bedelaysay oo aad doorashada adiga aad xukuntay oo aad madal wax la yiraahdo sameysatay
oo doorashadii dalka adigu ay ka amar qaadanayeen dadka oo waxaa doonta adigu aad samaynaysay oo waxaa doonta adiga aad ku dhaqaaqaysay xasan sheekh maxamuud xilligii doorashadaadi adigaa maamulayay guddiga doorashada adigaa u madax banaanaa guddiga doorashada adigaa saa doonta kay seedigaaga iyo walaalkaaga iyo adeerkaaga oo haddeertan guryaha dhaadheer xamar ka dhistay markaad madaxweyne noqotay adiga kugu faa'iiday ayaa guddigii doorashada aad u dhiibatay generaal Tuuriyan wuxuu ku ahaa taliyihii ciidanka nabad sugidda ciidan ruuxaan la yiraahdo adigaa samaystay oo dadka guryaha ugu geli jiray Axmed Daaci wuu nool yahay wuu joogaa cidna ma soo qaban kari raali ahaada Axmed Daaci wuu joogaa adigaa guriga ugu galay in adeerkaaga Cabdinuur Siyaad Cabdiwaal adiga xamar ka eriyay oo kaaga cararayo galgaduud aaday cadaado ayuu aaday ciidankii qaranka Soomaaliyeed dhisitaankooda dawladda Ingiriiska amarkay ku siisay 18 wax ka badan looma ogol adiga lagu amray nimanka hadda joogo markay yimaadeen waa lagu amray way diideen waxay yiraahdeen intaan awoodnaan samaysanayna ama 18 ha ka yaraato 18 ama ha ka badnaato kureejo jaanis iyo waqti waad haysatay laakiin haddii cadaanka uu ku soo horfariisto waxaad oga baqdaa maalintii qabriga lagu qaado dhinac dhulka lagu dhigo munkar iyo wanankar markay ku yimaadaan su'aalaha ku weydiinayaan baqdinta laga baqo ma aragtay ya indhood aan la fiirin karin adigu shisheeyaha uga cabsan jirtay madaxaagaad hoos aadin jirtay waad fooraarin jirtay saasoo u raaraaci jiray wuu laadlaaday madaxaaga carabkaaga isla laadlaadeen marka kooxdii adigu ku daba socotay xasan sheekh maxamuud oo burcada aheed oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed mushaarkoodii dam ku degi jiray oo laqi jiray dam jadiid aheed oo dhul aan dhaafin oo dad aan dhaafin oo deegaan aan dhaafin maanta ciidan adigu ka hadlaysad adigu leedahay ciidanka qaranka cid idin amraysa waa inaad ka fiirsataan waa inaad ka fiirsataa ciidanka qaranka maxaa ka galay ciidanka qaranka xasan sheekh maxamuud maxaa ka galay ciidanka qaranka وعليكم السلام حابة علي انت كذلك سوق اشترانت وعيد نوسي شركة ليه عيدن كقرن كما اهان كسو ما اهان كوبي ادو اد كتيري $100 نين كان هيسني البابك كدق ودب ولب هدي لغوه هلي كرو هدان لغوه هلين اديga ay ku jirtaay ciidanka qaranka mushaarkoodii bankiga dhex maalintii xilkal aad wareejisay wixii lacag ku jiray dawladda akoonkeedii xasan cali qeyra markuu xilka kala wareegayo Umar Cabdirashiid Cali Sharma arke oo mikrofoonka soo qabsaday uu yiri imisa ku jirta bankiga oo Umar Cabdirashiidna uu yiri $1 kuma jiro lacagti intii doorashada habeenkii doorashada markay dhacday oo farmaajo hotelka u hooyday soo ma ahaynad bankiga ka dawo martaysan ad gadaal marteen ad bankiga wixii yaalo dhan kala qaybsateen ad ku digteen $1 aan loogu tagin waa dawlad dhan aan ku meel gaar ahayn $1 laga waay akoonkeeda 2017 farmaajo markii la doortay waalaikum salaam inta gadaal ka soo gashay taariikhdaada oo taxanoo saas ah fiir anigoon Soomaali jooginaan anugu haaya xasan shabeelaha hoos wixii ka dhacay dadka anaga inoo tacsiinayeen ciidankii qaranka aad adigu militariga isku heeb aad aheedeen adigu aad soo adeegsatay oo ku fuulayay gabdhaha beeraha janaal iyo afgooy inta u dhaxaysa iyo marka maanta waxaad ka hadlaysaa ciidanka qaranka niman yahow cidda idin maxaan ku raadayay cidda idin amraysa waa inaad ka fiirsataan ciidankii qaranka baatihiin ciidanka qaranka heybada maanta ka muuqata juhdi iyo dhafar baa la geliyay ciidanka qaranka rag baa xaniiyahooda korayo xaniiyahooda maalay rag baa shisheeye ku yiri aamuusa dalkayga waxaan ka samaysanayo adigu anigu kalama tashanayo never and ever negotiation what we do in our country rag baa ku yiri marka caawa waxaad aniga ila soo dooranaysaad adigu beer la xawsanaya ma waxaad moodaa ciidanaad adigu isxigsiisid iyo kubii adigu ku qaadi jiray heesihii maxaan ku raadayay TV qaranka laga soo diin jiray adiga lagu amaani jiray oo cid gaar ah lagu maamuli jiray waan ka qaaday Zainab Jama cid gaar ah lagu maamuli jiray oo adigu ku sacbatumi jiray haddaad adigu dhankooda israacisay ciidanka qaranka rag baa xaniiyahooda u fuulay ciidanka qaranka kowde sidaasna kursi ugu ma soo noqonaysid madaxweynena kuma noqonaysid waad hurdada ka qofka habeenkii hurda wuxuu kuriyoodo maalintii ka sheekeeyaa haduu maskax leeyahay hurdada haday fiican tahayna wuu sheegtaa haday mid xun tahayna wuu qarsadaa laakiin adduunka waxa ugu xun nin soo jeeda aan hurdin nin soo jeeda oo fadhiyo
oo fadhigiisa ku riyoodiyo haddana dadka banaanka uu soo dhigay ka sheekaynayo rii maalmeed oo soo jeed ah rii soo jeed baad ka hadlaysaa xasan wake up from the dream hurdada ka soo kaca wacalaykum salaam cabdinaasir hoori noo sii sheergareeya waxaad leedahay ciidanka qaranka iyo taliyayaasha amniga dalka ayaad waxa amniga dalka inay ayagu mudan yihiin inay maanta ayagu dagaalamayaan xilligii adiga aad joogtay ayaa ugu dambeysay askari afrikaan ah oo amisom ka socda Uganda iyo Burundi ka socda iyo Nigeria ka socda oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ka barbar dagaalama waxa ugu dambeysay 2016 bishii Maarso xiligaad adigu madaxweynaha 2016 bishii Maarso ugu dambeysay 16 bishii Maarso ayaa ugu dambeysay askari afrikaan oo dagaal galo inta adigu madaxweynaha ahayd kuwa maanta min janaala ilaa qoryoolay sibid iyo aanoola qabtay ilaa iyo jilib markii iyo dhanaana qabtay ma afrikaan baa la socotay waa may afrikaanta maalinta hal howlgal haday sameeyna one operation haday ciidanka afrikaanka sameynayaan $520,000 bay qaataan afrikaanka $520,000 bay qaataan afrikaanka bar daily waa maalintii kaliya hal howlgal haday sameeyaan wixii ciidankaasi ay qaadan jireen adiga kaalimo shidaal ku furtay oo ku guri ku gaari iibsaday islaantaada soo ma aheen maalintii xaflad intay qabatay oo Dr. Xabeeb ku wareejinaysay 16 boos baan ku wareejiyay Dr. Xabeeb oo asagan uu lahaa Allahu Akbar Allah xageey ka keentay 16 ka boos lagu wareejiyay Dr. Xabeeb dad baa laga dhacay guriba dad umad baa dhulkooda la boobay oo la iibsaday xoogna loo sheegtay dan guudna la yiri ayaa laga dhigay dan guud baa loo bedelayaa oo been bay ahayd kilibkaasi wuxuu ku jiraa YouTube cid walba way ogtahay xaaskaaga oo ku leh 16 boos baan Dr. Xabeeb ku wareejiyay asagan la soo booday Allahu Akbar faatax maalo xagee ka keentay adiga bixiyay dad iyo duunyo iyo deeq iyo deegaan waxaad dhaaftay ala wari ma jirin adiga markaad joogtid madaxweynaha adigu aad ahayd 2021 ka la maraya sanadka ma ahan 2015 sanadka la joogo ma ahan 2014 sanadka la joogo ma ahan 2013 ay dagaalada ka holcayeen gobolka Shabeellaha Hoose military waalan dadka uu soo galay oo cambaha iyo galeyda beeraha isku cuni jiray gabar haday ku dhax arkaan beerta dhexdeeda ku dhax kufsan jiray marqaatiga nool waa aniga haddii ay geeri dad ka gasheen amba cid xumaan loogu geystay aniga i soo gaartay taas xasan sheekh maxamuud caaw waxaad rabtaa gorgor iyo danab iyo alfa group iyo gaashaan iyo ciidamada qaybahooda kala duwan inaad adigu isla haysiisid dhankooda martid adigoo rabo mar labaad inaad kursi soo kortid baroorta orgiga kabeen ninkaad adigu leedahay ra'iisul wasaare weeye waxa lagu wareejiyay doorashada amnigeeda hadduu nin karmeed yahay oo asagu wixii uu ku dhaartay hadduu ka run sheegayo doorashada ha dhameystiro oo ha gaarsiiyo doorashada sida loogu talagalay hadduunan doorashadaasi awood u lahaynna guddi ka madax banaan dawladda dhexe oo maamul goboleedyada dawladda dhexe ka socda laakiin ka madax banaan ayaa jira ayaa shaqeynaya ayagan doorashada hadeertan sii wado oo qabanay maanta magaalada Jowhar waxa lagu soo doortay senator cusub ayaa lagu soo doortay marka xasan sheekh maxamuudow maalintii 2015 hadii waqtiga dib heestay waxa ku shidan zulfa uu qaaday wayna waaxido waqtiga soo celi wadankiisa heeso ma heen waqtiga mar soo noqonay tight and time wait no for man tight and time wait no for man mawjada hirka iyo waqtiga cidna ma sugaan wa alaykum salaam shifa nuur aad baan salaad idin ka qaadno si sheer gareeya xasan sheekh maxamuud maalintii adigu aad ciidanka Soomaaliyeed ka dhigtay kuwa albaabyada garaaca gabdhahana kufsada dadkana dhaca oo locda horteeda baroonaa socday loc federaal way aray ka leex maalinta ka dhacaysay gobolka Shabeellaha Hoose stiil way noo muuqataa anaga waalaikum salaam inta gadaal ka soo gashay ma maanta waxaad noqotay adcaaw intaad kilib yar iska soo duubtad waxaad leedahay ciidanka qaranka cidda idin adeegsanaysa cidaad u shaqeynaysan waa inaad ka fiirsataan ciidanka qaranka maxaa ka gal ciidanka qaranka ma adiga mushaarka siiya ma adiga ID card-ka siiya ma adiga maanta meel ku og ciidanka qaranka wasaaradda gaashaaniga maalintii ay dawladda federaalka Soomaaliya xilligii farmaajo markii la doortay markay tagayeen 7,000 oo askari ayaa la waayay
oo magacoodana mushaar lagu qaadanayay qaar tahriiba qaar shabaab isku qarxisa qaar shabaab ku biira qaar hubkooda iibsada iyo qaar aroos galo oo hubkooda iibsado aroos ku gala iyo duurka ka soo dalka ka soo tago soo tahriiba ayagoo u kala baxay ayaa war aawa liir 7,000 oo askari halkan joogtay aawe oo budgetkooda lagu soo darayay idinka kala qaybsanay lacagtaas duumilla bintu unaan ku jirnaa rag baa xaniiyahooda u fuulay ciidanka qaranka marka caawo ma ahan adiga inaad soo hadlo waxa doonta kale ka hadal horta waxa doonta kale kuguma qabsanaya ka hadal laakiin ciidan qaran maalintaad soo hadal qaadid xasan sheekh maxamuud goobaan lagu geeriyooday ifka ma joogo wuu naga hooseeya ilaaha u naxariisto anigu meedka ma aragtay ma bahdilo laakiin inaad adigu u soo wakiilatay ayaan ogahay goobaan calamada iyo carbiska ceelasha biyaha ilaa iyo lafoole afgooy degaandegeedii carbiska kalanjaatada ilaa baar ismaaciil wadada muuri sii aada ilaa iyo number 50 elwareego ya ilaa iyo meesh la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa bufo bacaadka ilaa ay shalambood qoryoole iyo janaale ayay isbaarada dhiganayeen dadna lagu dilay habla lagu kufsanayay 2015 14 13 you were Somali president adigana madaxweynihii Soomaaliya ahayd wali waan soo jeednaa waan hadli karnaa waan noolnahay xasan sheekh maxamuud caawa markii ciidan rag xaniiyahooda fuulay oo ka soo shaqeeyay rag xaniiyahooda fuulay oo ciidanka qaranka u soo dhabar adeegay oo waxay rabaan يعني maxaan ku yiraahdaa waxay ayagu rabeen ciidanka loo sameeyay dishibiliinkoodii dhaqankoodii ciidan loo ekeysiiyay maalintii amisom ugu dambeysay inay ciidanka Soomaaliya ka barbar dagaalamaan waa adiga markaad madaxweynaha ahayd illa al'aana maalintii farmaajo la doortay imise degmo ay xoreeyeen sibiid iyo caanoolan kaaga soo qabanaya oo afgooy daris la ah dhan aanan kaaga soo qabanaya iyo maxaan ku yiraahdaa jilib marka qori janaalan kaaga soo qabanaya idegmooyin fara badan oo gobolka Shabeellaha hoose askari Afrikaan miyaa la socday may adiga Afrikaanta wad caabudi jirtay cadaankana wad u sujuudi jirtay haddaan been sheegay nin dhintay oo Afrikaan ah ayaad saatiri numustay xasan sheekh maxamuud rooblana awoodda adigu aad u raadinaysidna ma lahan ninka roobla la yiraahdo awoodda adigu aad caaw siinaysid adigu gacmaha u saaraysid ma lahan weligeeda iyo nolosheeda lama sheegin chief of the commander inuu xil wareejiyo maxamed cabdullaahi farmaajo xil ma wareejin karayo amniga dalka asaga ka wakiil ah waana chiefka commander oo ciidanka Soomaaliya SNA asaga ugu sareeyo waa chief commander weeyaan maxamed cabdullaahi farmaajo balse ninkan la yiraahdo rooble taliyaasha ciidamada maamul goboleedyada shanta taliye ee maamul goboleed rooble oo lix ah wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar taliyaha ciidanka Amisom iyo taliyaha ciidanka United Nations amba UNISOM intaan ayaa doorashada loo wakiishay waana Somali security elections oo kaliya laakiin security state cid ku wareejisay ala abuuri ma jiro haddaad adigu caaw dastuur cusub adigu aad u qorayso haddaad adigu u xalaalaysiinaysid adigay ku jirtaa laakiin dhado roob ma noqoto dhado roob noqon weeday xasan sheekh maxamuud iimaanka ilaahay ku gelin xishoonaya ma tihid nin maalkii ummadda Soomaaliyeed iyo maamuuskii sharaftii karaamadii ilaahay uu siiyay ka qaaday baa tahay oo ku bahdilay baa tahay hablaha Soomaaliyeed sharaf iyo karaamay agteena ka mudan yihiin anaga adiga Sacuudiga aad u geysay qaarkood inta kaliya laga baxay zubaalada lagu soo tuuray qaarna calool xumo darteed dawqad iskaga soo tuureen qaarna dawladda federaalka soo celisay xilligii adigu aad madaxweynaha ahayd dawladda maanta joogtan inta Istanbul iyo Ankara iyo Asbarta intay geysay ay toobar soo siisay dalka ku soo celisay ayuu haram cad ah gorma ugu dambeysay siyaad bara ugu dambeysay Soomaaliya amba hurun amba 6 unug amba 7 unug la isku dardaray oo ciidan hablo toobar qaadanayo oo casri ah la soo siiyay soo adigu ma ahayn madaxweynihii dalka xilliga soo adigu ma ahayn ninkii ciidanka ugu sareeyo chief of the commander soo ma ahayn jeerto waxa laga rabaa fiiri inaad yeelatid waxa la yiraahdo adkaysi inaad qofka libintiisa u qirtid haddaad cadowga haduu yahay xitaa libintiisa waa inaad u qirtaa qofka dee xasan sheekh maxamuud marka ciidan ha soo hadal qaadin
hana niyadda ku dhisinin dhada roob ma noqonayso kursigana kuma soo noqonaysid adiga haddaad kursiga ku soo noqoto xasan sheekh maxamuud waxay la mid tahay maxamed bin salmaan booska dhexla sugaha uu sugaya binyamin netanyahu ayaa soo fariisan doona kii yahuudka ahaa ayaa sacuudiga ayaa ka talin doona taasay la mid noqonaysaa xasan sheekh maxamuud we know you waan ku garanaynaa xasan aray locda horteeda baroonaa socdo wiilashii Soomaaliyeed daruuf ayaa u geysay waxyaabaha ay ku dhaqaaqayeen 2015 iyo 16 ya 2016 iyo 15 ya lacag horteeda baroonaa socdo ayay ahayd waxaad ku hadlaysay marka maanta waxaad rabtaa dad adiga ka shaqo badan wax kalena kuma dheera ragaan waxay sameeyeen oo kali transparency wax la yiraahdo sameeyeen isla xisaabtan ya waxay sameeyeen bangiga adduunka aaminay dadkan dawladda nabad iyo nolol beyle iyo farmaajo iyo kooxdiisa iyo ra'iisul wasaarihii hore gadaal damba waxa xumaaday haduu doonee bangiga adduunka uu aaminay Paris kala baa loogu yeeray kala bardeemihii laga cafiyay maanta intii dhiman bay ka shaqeynayaan doorashaa socota ummadda Soomaaliyeedna ku maanta la soo doortay biri maalin imaadana waxaan ka rabnaa inay dalkan u hiiliyaan xildhibaanada cusub la soo dooranay ani kama hadlayo ku maxaan ku raadayay uqdadaysan oo xildhibaanimada u soo galaya inay adiga ku soo celiyaan iyo mid adiga ka siidito ku soo celiyaan oo dalka inay madaxweyne uga dhigaan uu kama hadla ilaaha naga qabto xasan sheekh maxamuudo tusaale waxaan ku siinayaa magaalada muqdisho airportka eeridiisa waxa jiray dhul fara badan dad ay degan yihiin intaad ciidan adiga aad adeegsatay ay tageen ayaad ku tiri maxaan ku raadayay dan guud ayaa laga dhigayaa dadkii markii dhulkii laga qaadayna walaalkaaga ugu horeeyay ninka dhisma ka bilaabo meesha oo guriga ka dhista darar dhaadheer ka dhistay ya islaanta adigu aad qabtay ahayd 16 boosaan ku wareejiyay Dr. Xabeeb mikrofoonka uu ku qalnay Allahu Akbar uu ku haayay xagee laga keenay 16 boos dal iyo dad iyo deegaan iyo maxaan ku raada iyo deeqba ma dhaafin xiligaad madaxweynaha ahayd marka maanta ha isku soo qorin askari Soomaaliyeed oo la galiyay waqti تعبير لغو سميي يا تعبير با لغي عيدنك فيدي هول adag ba laga qabtay ciidan walina way socotaa waxaad u soo hanqal taagaysid wax kala ma ahan qabya ninkeeda dhameystir waxba qabya ku ahaa waxaad haligtido damsiisid ayaad u soo socotaa oo aad ku digtay sidii aboor gaajaysan ilaa waad gaajaysneed markaad soo galeyseen adigi iyo 30 milyan heesta iyo Farax Abduqaadir iyo Sharif Sakiin iyo Axmed Madow hadda jooga iyo maxaan ku radaa Cabdiwali Gaaski baxay iyo ya Umar Cabdirashiid Ali Sharma arka iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo ya aboor gaajaysan baad aheedeen aar libax oo kala u soo gashan dhaqaalihii dalka waad ku guurteen waxa doonad ka samaysateen ya marka maanta waxaad rabtaa marka adiga ma xasan soo matid mis qof kale way qofkan anigu daawanay maanta waa xasan adigu way ha marka ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha laga yaaqsado labada leh oo sensitive ka keenay ummadda lama soo horfariis waxa inaad gabataa bay ahayd horta adigu waxay ahayd inaad gabataa bay ahayd gangi maafi baad ahayd oo soo galay dalka way kugu sirmeen dalka ya walhe lagugu sirmay marka waxaad rabtaa hadda iiko ninkan inaad u wakiilatid maxaan ku raadayay awood uuna lahayn inaad adigu gacanta u saartid gacanta u gelisid haddaad ba kursi saas ugu soo noqon kartid bal waan arkay dhada haday roob noqonayso bal waa kaaya soo noqo xilka ku soo noqo tomorrow oo kale 7 bishii Maarso 8 bishii Abriil Febraayo 2017 biri oo kale doorashada ay dhacaysa caawa oo kale xasan waxaad haysatay 219 xildhibaan baad haysatay lacag 24 milyan oo dollar ah ayaa la qeybiyay balanqaadna wuu jiray waaga markuu biriyay galabteena wixii ka dhacay waad arkaysay 97 cod baad heshay 97 ka codna waa ninkii Kenyaatiga ahaa uu sheegayay oo caylna uu lahaa maxaan ku raaday feeraha weyna uu lahaa maxaan ku raadaa en 97 debuts in Soomaaliya kulana baarlamaanka Soomaaliya ayaan anagu ku leenahay waa 79 kii cod adigu aad heshay Kenyaati ninka Kenyaati markuu leeyahay aniga gacanteedu ku qoray
97 xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya inoogu jiraan kuwa uu lahaa oo mahad salaad uu baarlamaanka hortiisa ka sheegayay kii wakiilka Kenya uu sheegayay waa kuwii adiga codka ku siiyay 97 cod aad heshay oo kaliya soo moogi damu jadiida tahay stiil waan lagu arkay lagu bartay anigu macallinkii anigu aan dugsiga quraanka ma macallinkii anigu hadduu wanaag igu dhaqmo dugsiga quraanka macallinkii waa hadduu xumaan igu dhaqmano ma ilaa xumaan ismaas ma ilaaway waa lagu bartay waxa tahay ya marka maanta waxaad rabtaa askari Soomaaliyeed iyo saraakiil Soomaaliyeed haday yihiin dabli iyo leeli sarkaal iyo captain iyo cornel iyo maxaan ku raada iyo sergeant iyo major iyo wuxuu yahay maxaa ka galay adi ya budgetkii ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaad ku qalqaybsateen 15 qofood ya maalin garowaad u tagi jirteen carab inaad ku cuntaan maalin Kismaayo tagaysay inaad qumba ku cabtaan biyihiisa ya maalin madaxtooyada dhexdeeda wasad ku cunaysay markaad adigu joogtay ya 4 sano iyo 6 bilood iyo 20 maalmood madaxweyne ahayd waad qoslaysay shacabkan way ooynayeen 4 sano iyo 6 bilood iyo 20 ish adiga aad qoslaysay shacabkan way ooynayeen wa alaykum salaam abdi xallo inta gadaal ka soo gashay marka caawa adigoo timihii ka daatay oo qaadara ka muuqata oo xaaraanta ka muuqata ayaad meesha soo furiistay waxaad rabtaa beer la xawsi iyo propaganda iyo been dhada roob ma noqoto kursina kuma soo noqonaysid wallahi bilayna aan ku soo noqonayn hayhaata lima tu'aduna ka tahay taas ku bishaarayso today and tomorrow inta cimrigaaga ka dhiman iska ahow xildhibaan aanan dhicin xildhibaan sharafeed Soomaha codkaaga xitaa muhiim ma ahante codkaaga muhiim ah waa labada aqalka sare aqalka hoose ayaa codkooda muhiim ah hadaad kacdood cod ku ridid hadaad iska fadhiistidbo cid adiga codkaaga u baahan ala abuuri ma jiro waligaaga iska ahow sidaada hayhaata ka tahay inaad soo noqotay waa calaasha soo coos ka soo baxay ina adiga soo noqoto mardan dalkan hogaamisid Xasan Sheekh Maxamuud dhibaato in lagu filan ay umada Soomaaliyeed kugu barteen waad ku sameysay wax doontaad ku dhaqaaqday ya intaad jaf tiraada you are the first president ata intaad jaf tiraada carabtay jigjiga tagtay dhaanta ku dhashay go'shaalna lagu soo xiray habeenkii mahad salaad calooshi inta leegtay dhinacaaga fadhiyo ayaa tiri waxa la inooga sheekeeyay dagaalkii 77 wuxuu ahaa dagaal ay umada Soomaaliyeed ku qaldaneed in ay gasho dhulkan jigjiga si fiican baa loo dhisay waa dhul Ethiopia ay leedahay ninkii yiriya tahay ya ninkii Soomaali galbeed tagayo dhulka dhul Ethiopian way ninkii yiriya tahay habeenkii dhaanta ku soo dheelay agoon baan ahay baatiri agoonniman anigu ku soo koray wa alaykum salaam inta gadaal ka soo gashay agoonniman ku soo koray sabtigi ahad maalinta khamiis iyo jimcaha dharkeygi iyo saabuuntaydi iyo jaabgashigeygi wixayga leeysiinayay dawlad iska arag ayaa jirtay wax barashadeedii ayaa tiri birisamaadka laga sheekeynayo xilligii Maxamed Siyaad barma birisamaad kala jiray birisamaad hadaad maqashto waa xilligii Maxamed Siyaad laba maada meel isla ma gasho Maxamed Siyaad bar qof xun oo ahaa iyo xilligii birisamaad sababtoo ah labadii dawladood asaga ka dambeeyeen birisamaad lama dhihi karo tii Cabdirashiid Cali Sharma arkan musuq ay ahayd tii aadan cadana markaas aan xorriyada qaadanay birisamaad ma jirin dalka warshada ma lahayn horumar ma jirin ya ma jirin birisamaad waa xilligii Maxamed Siyaad bar marka laba maada meel isla ma gasho birisamaad iyo Maxamed Siyaad bar qof xun oo ahaa meel isla ma gasho adiga mid dooro both of the things waxa aad u jeceshahay marka waxa tiri Maxamed Siyaad bare agoonniman ku soo koray dawladii wax noo qabatay oo ahaa waad ka sheekaysay daraadna waxa tiri Maxamed Siyaad bare meel kale oo iskaga dhintay asagana waa burinay dalka waan ka erinay meelaha ku geeriyooday ayaa tiri waxay soo ahaato soo gurguurata beenlow hadaa tahay xusuustaada waa inay badnaataa Xasan Sheekh Maxamuud ya sidii horteed inaad fadhiso oo kale anigu wallahi kugu la hadlaya wallahi oo bilaa oo talla beenlow inaad tahay ya hadaad beenlow tahay maartay xusuustaada waa inay badnaataa dad xusuus lahaataa mar walbo waxaad ku hadlaysid waa inaad ku fikirtaa hadaad beenlow tahay marka caawa waxaad inta tii aan hayga boojeynina tii jigjiga inta tagtay oo ku tiri dhulkii Soomaali galbeed oo Ethiopia hayso Ingiriiska siyad waxa tiri waa dhul Ethiopia ay haysato
kaarahan iyo waxaan burbursan iyo dagaaladiina la galay taariikhda la inooga sheekayn jiray oo sabuuradda la inoogu qoran jiray oo Ethiopia dhul naga haysata gumaysiga amxaarka nala dhihi jiray been bay ahayd waxyaabo xun bay ahayd ayaad adigu tiri xasan sheekh maxamuud maalintii kacaanka joogay in lagu daldalaa bay ahayd haddii la ogaan lahaa noocan inaad u hadlaysid ya kuwa maanta dalka qasaya oo maanta calooshooda saa u xoqanaya waa kuwii kacaanka ka faa'iideystay oo wax soo bartay ama iskoolaad lacag la'aan free soo dhigtay oo nabad iyo dal dhisan indhahooda ay qabteen ayaa maanta maara looga laayay siyaasadda Soomaaliya like you xasan xaabsada ya marka anigu waxa iska qey qaban la waxa aniga marnaba aan qaadan karin birisamaad baa jiray iyo maxamed siyaad bare dawladdiisa mucangag bay ahayd ee birisamaad waa xiligii siyaad bare joogay way dawladdii asaga ka dambeysay cabdirashiidna musuq bay ahayd maalin cadaa lees dil jir lees dhici jiray siday aqoon-yahanada sheegayaan tii aadan caddana markaasaan anaga qaadanay xorriyadda dalka ma balaham horumar iyo dhaqaale iyo ma balaham warshad hadday noqoto 2 milyan oo arday lacag laan wax ku barata hadday noqoto mashruuc kala duwan hadday noqoto awood ciidan iyo mid dhaqaale waa tii maxamed siyaad bare marka caay iyo birsamaad meel islaama ma gasho ha isku keenina inaad caaydan siyaad bare iyo birsamaad inaad ka sheekaysaan anigu maanta adiga saan kugulama hadleen caawad noocan kugulama hadleen haddii aan kaa arki lahaa waxay adigu facaaga sameynayeen 4 sano adigu aatay 5 sano adigu lagu doortay farmaajo jaaniska adigu ku soo maray farmaajo uu soo maray wuu ka faa'iideystay balantow qaaday ayuu fuliyay adigan aboor gaajaysan baad aheedoo soo gurguuranaya ya aboor gaajaysan wa alaykum salaam leela aadan aboor gaajaysan oo soo gurguuranaya aheed adiga axmed madoobe shariif sakiin cabdiwali cali gaas ya فارح عبد القادر 30 مليون مهد صلاة يا انت جروب كاغا هيد واد كل عقيستين قرنكي سوماليات عسكريغان $100 ولالو البابك اسكاغا بخ الهي ملك لها كاسيو عاونه ciidanka qaranka waxaan u sheegayaa inay ka waantoobaan cid amarka si maxaa ka gali amar jin iyo ruuxan haday amar siyaaxata maxaa ka gali adig ciidanka amarkooda maxaa ku tusay maxaa ka gali beer la xawsiga dhada roob noqon weeday laygu sirmaayo surwaal nuungi uu yiri odagii harmataanka ahaa laygu sirmaayo surwaal nuungi uu yiri oo sinyeer ku leh meel xumo hoos ah anma adiga lagu ka gaada mar labaad umad Soomaaliyeed ma qeyaan rabtaan ya waxaad ku dogtid oo fuuqsatid bad raadinaysaa sidii maroodi soo dhaan doonto war biyood yimaado habeenkii damsiyo oo kale alla maxay gaajo ahaayeen ya kan maanta wasiirka amniga ka ah galmudug oo fiqi la yiraahdo ayaa adiga mucaarad kugu noqday gadaalahan dambe oo kugu yiri aboor gaajaysan baana soo galay fiqi mucaaradkaagu noqday gadaal dambe waayo dhaqaalii wixii aad bartay ayaad ka joojisay wadaniyada markay dhaqaale ku kooban tahay wadaniyadii calanka laga been sheegay markay tahay in wax lagu dhaco wadaniyadii iyo waxaan laga sheekeynay markay noqoto aan kaligay wax cuno wadaniyada markay noqoto iyo dawladnimada markay noqoto guri la iibsado wadaniyada iyo dawladnimada markay noqoto aan ku guri ku gaari iibsado dadkaygan ha noolaadaan isbishal jufadaada hoose dawladtaad baad u garanaysaa xasan sheekh maxamuud shariifka 2000 ilaa 4000 arday lagu tuhumayaa koow dambi kale uma haayo iyo arintii badda waxba kama ogeyn uu yiri labadaas mooyaane shariifka ayaa ku dhaama alal aqal shariifku wuxuu ogay in la dhimanayo ogay adiga geeri moog baaba tahay baadi ma xishoonaysid been low kada iblow baa tahay wariya gabadfalladii ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose gabadfalladii ka dhacay birmigeedidii masaakarkii genocide-kii aad ka geysatay gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka ay ka geysteen aad tuutihii dawladda iyo hubkii dawladda lagu weeray lagu kufsanayo dadka shacabka masaakiinta beeraleyda ah ciidankii qaranka ay ahaayeen maxaad adigu dishibiliin ugu sameyn weyday ciidanka qaranka caawaad rabtaa ciidan farmaajo iyo ex-ra'iisul wasaare xasan cali qeyri iyo ay geliyeen oo awood la geliyay aad rabtaa caaw adiga inaad isla haysiisid adigu aad tiraahdid ciidanka qaranka ciddii ku amreysa iyo ciddii kugu sameynaysa waa inaad ka fiirsataa ma soo noqonaysid kuwa xumo adiga ku sacbi meelaha kugu taageersan ya kuguma taageersano
hal qofood lama arkayo oo qabiil kale ah ama jufo kale ka soo jeeda adiga caawa ku taageersan wixii adiga ku taageersan wax adiga kugu taageersan jufo ahaan ama beesha weyn adiga aad ka dhalatay ahaan marka la yiraahdo hiraab ya shalay dadka xayawaan ma ahaayeen magaalada marka dagaalada markay ka socdeen shalay markay dagaalada ka socdeen beelaha biimaali habar gidir markii afgooy habar gidir iyo galadii dagaalada ay dhex marayeen galadii habar gidirta ya waa daawanaysay geed walbaa lagula fariistay ya geed walbaa lagula fariistay laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo markuu yimaaday markuu tagay wuxuu yiri war wada noolaada wada deganaada ninkii ganacsigiisa haysto alal aqal dadka way degan yihiin way isla nool yihiin meel bay ku wada nool yihiin xataa u sameyn weyda adi ya military 17kii maxaan ku yiraahdaa 14kii October qarxii dhacay dhalinyaradii isqortay ayaa xureeyay Sabiit iyo Caanool iyo Janaale ciidamada maxaan ku yiraahdaa guutada 14 October ya kaliya xureeyay ayagoon Afrikaan la soconin ya waxaad doontaad ka samaysay reer abtiyaashaadaad ka habaarsatay oo hiiraan waxaad ka geysatay waan ognahay doorashada Soomaaliya maanta waxay la dhaqaaqi laadayo adduunyada saa u qari wayn waa adiga iyo Shariif Sakiin idin kaga ma fogo arintan waa adiga iyo Shariif Sakiin ninka ra'iisul wasaaraha maanta xilkaaba ka xil asaga aanan qaadi karin oo ka weyn ka awood weyn ayaa loo dhiibay waxa la moodayay nin degan oo waxa inuu yahay oo gentleman inuu yahay la moodi jiray ma ahan dadka saas bay moodayeen waa been ya Xasan Sheekh Maxamuud we know you waan ku garanaynaa cidaad u gabanaysid Uhuru Kenyatta u gabo ya iyo cidaad adigu u gabanaysid iyo Boris Johnson beenta ka dhaadhici ikraan odagii abwaanka abaan bedel Soomaaliya xamar joogay ruwaayad baa soo baxday uu yiri doorashada ma dhacayso hadaan gadi ciidanka laga soo saarin ruwaayadaas way socon weydii uu yiri haddana maanta waxay soo ikraan ha loo raadiyo cadaalad waa loo raadinayaa laakiin dalkii yaa burburaya dagaal sokeeyaa bilaabanaya qarankii baa doorashadii istaagaysa dunidii hawadii Soomaaliya soo celaya dib loo celinaya dal fashil noqda ee Soomaaliya macmarad baa ma gali karnaa birika maalin in la yiraahdo nimankan kor laga fiiriyo ciidan awood badan hala geeyo ilaa ay nimankan 50 sano kale la sii gaarsiyo noocaas aad ku qanacsan tahay sababtoo ah bangiga lacag kaaga buuxda adigu aad dhacday ya caaw markuu xadaftaa ciidan qaran Soomaaliyeed oo juhdi iyo dhidid lagu iyo dhafar fara badan lagu bixiyay inaad adigu caaw adiga aad yaani beer la xawseed kilib yar iskaga soo duubtid ma soconayso yiri xilbaan kula lihi marka wala xishooda fiiri ceebta waxyaabaha adigu aad sameysay hadii ay jiraan waxaad adigu ceeb u aragtid Xasan Sheekh Maxamuud hadii ay jiraan madaxweynihii dalkaad ahayd hadii ay jiraan arimo adiga aad ka xishootid oo qodobo oo ceeb ah hadii ay jiraan adigu aad garanaysid oo aad ka xishootid wixii adigu aad soo sameysay ku darso ceebahaas ku qoran ma aragtid ku darso waxyaabaha aadan dadka la soo horfariisan karin ka dhigo waxaad adigu aad sameysay 2015kii falkii iyo action kan anaga kugu aragnay in 2016 15 14 13kii aan kugu aragnay ku darso ceebahaagii dadka aadan la soo horfariisan karin ka dhigo ku darso xisaabtaas ku darso Xasan Sheekh Maxamuud farmaajo adiga habeen iyo maalin baa kala tiin habeen iyo maalin baad kala tiin adiga iyo farmaajo Shariifka ciidankii dhalinyaradii doonuna iyo iidaal iyo maxaas iyo janta kundish iyo bandiiridley ku dhamaadeen ya marka laga reebo ya iyo arintii badda waxaan ka ogaay malaha uu yiri Umar Cabdirashiid ka dambeeyay uu yiri mooyaane al aqal asaga ku dhaama Shariifka ya way Shariifka aboor gaajaysan ma ahayn lixdii bilood Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ra'iisul wasaaraha u noqday dawladii Sheekh Shariif ciidanka mushaar baa loo biloobay markii asaga la bedelay ciidanka mushaarkooda way qaadanayeen kadibna doorashada dalka ka dhacday 2012kii adigu aaway waxaad doorashada u soo gashay wixii deen aad doorashada ku soo gashay inaad ku bixisid inta kale inaad adigu dhacdid walow lacagta bangiga taale hadad qaadan lahayd oo dhulkii islaameed iyo wixii oo dhan hadad dhaafi lahayd wax bay ahaan lahayd umada Soomaaliyeed ku aragtay oo ku baratay ee xishow dadkana soo hor istaageen hadad isleedahay maalintii warqadaha ay bilaabanayso codadka lagu riday sanduuqa tirada Xasan Sheekh Maxamuud
حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود واتسوغيسا تاس واتسوغيسا ترسو إمس الدم الجديد هذا تنحل بقى عقل كسر كوسو قشي صدحي أفر بعد هيستا ترسو عدد كاغا ترسو مرك قفك أنا عدوي يهدوية حتى ما عرفتي واي اللي بنتي سما قريو رجعني ماذا يكون جرتها جرتو كراجي يالدي أنا قاعد عاوي إيسو قاعدنا يسوي حيابه أو ملا أول يا واحد كشيء كينيس وحي لمتها ما تقانا نين دنتيو آخرة تجيو لدها يبري على سوق وصار نقنا يا ما صار نقنا حسن هذا رحت ويري نيجي يمنيجا هالعكتر كرلمتي هذا رحت ويري ما ترجع لأبد ويري ما صار نقنا يستن وين بحد واتكتي أديرو سلام آمين إلهك وأرورشو محمد عبد الله فرماجو واحد كو هيستين محو نظام أوكيني واحد كو هيستين دين عفن محالو كيني واحد كو هيستين امتحان دولته aan burburino Afrikaanta ah ayaa deeman lagu leeyahay adduunyada kule imtixaan baa loo diray way ku dhaceen Soomaaliya 4 sano kaliya imtixaan ku jirtay 12 imtixaan bay ayay baas gareysay oo deeman kala bar laga cafiyay waad masiirsan tahay u quurde mushaarka ciidanka joogta loo bixiyay xitaa halkii san 9 bilood adigu ciidanka mushaarkooda adigu aadan bixinin dawladdan hadda joogta bixisay Xasan Sheekh Maxamuud cidaan ku garanaynin u beer la xawso meelaha u soo fariiso u neeki أنا وانكو قرنينا آد بان كونا قانا حسن شيخ محمود ما قرأت خوب لا إيسو هيري ورقد وحان أركي عاوة ميلها ميريسان يسا أو كوهاي لعقتي إمارات لغا قبتي هذا كور هلو قصو علي وحناس ورقد داسي فيق إني تهي هذا الله صوش شيغي رون إيبان وحي أهاتبا هورتو اسكو داينيك خوب لها إنو بنكي قديحي ورر كو قادو أو لعقتاسي دم أوسي أساقنا قرشيز وحيو أها تضوئي طوان وزير إنو هالبر بدلو فرماجم ترتيب مدحتooda loogu gala kadib meesh laga siibo wadankan Kenya Imaaraat Masar iyo Ingiriis waxay doonaan inay ka sameystaan ya Kenya Imaaraat Masar iyo Ingiriis waxay doonaan inay ka sameystaan qorshaha kaas uu ahaa habeen hore markuu u tagay ninka la yiraahdo Maxamed Mursal war ma ku mis dhageysana uu yiri amba i dhageyso ama howshaada wado ama is cazil hadaa i dhageysay miiska soo fariisto hay wuu fariistay wuxuu yiri amniga qaranka guud lagugu wareejinin amniga qaranka guud hadii qof lagu wareejinay aniga lagu wareejinay anigoo ah gudoomiyihii baarlamaanka aniga lagu wareejinaya haduu madaxweynaha dhinto hadii madaxweynaha maxaan ku raada uu xanuunsado haduu madaxweynaha dalka haduu ka maqan yahay hadii wax la wareejinay aniga lagu wareejinaya ila madaxweyne laga soo doorto sidaas wax u faham wax lagu wareejiyay waa amniga doorashada waa adiga lagu yiri waxa lagu yiri adiga taliyash maamul goboleedyada تليا عيدن كأن بوليس كصوماليات تليا عيدن كأميسوم يتليا عيدن كمحن كولا دا يونيسوم يونايتد نيشنز وحمر جو وقابة نيجيريا كصوت وقرن وايي دستور كي دال كسيدو ياه وانا ان دولة اقوى نود كفايسي مرقي سكرسن جيري رئيس الوزراء مرقه كريناي يا و اسدحيا عيده اسمه اوغ وحو كو هدلا اسمه اوغ وكالدي ورركا تيفيغي قرنكا راديو مقدشو iyo wakaaladii wararka ee Sona niman uu dhiibay waxa lagu leeyahay wakaalada FM ka in sharmaarka la yiraahdo FM ka jooga TV qarankii waxa jooga Al-Adaala jooga TV qaybta Sona Al-Adaala jooga qaybta qarankana waxa jooga TV qarankana waxa jooga Cabdicasiis Afrika saddexdan waa isku juf isku qabiil ah ayuu ku wareejisay TV qaranka habeen hore xilkiisa markii la dhimay wakaaladaha wararka dhan ay sheegay caalamka dhan way baahinayeen kii qarankan waa laga soo sheegay waa la soo qori waayay ficil inta kamid ah uqdad kabeen ma jir ma xad dadka u caynaysaan aad u leeyahay markii la idin yiraahdo Mooryaan baa tiin dadku waxa tiraadiin uqdad baa idin haysa waad uqdadaysantiin ayaa dadku ku tiraadiin laakiin idinka uqdadaysan idinka masiirsan hadan uqdad idin haynin oo masiir haduu idin haynin al aqal wax walba madaxweynaha ku saabsan waad soo deen lahaydeen TV qaranka ayaad soo dhigi lahaydeen idinka uqdadaysan idinka gaajaysan idinka bahala ah idinka aboor gaajaysan oo soo galay ah idinka maanta rabo hadan mar labaad inay xukunka ku soo noqdaan wabiyaha maarata Jubi iyo Shabeel iyo badaha inay fuuqsadaan hadan rabo mar labaad ay ku dagaan dam ku yiraahdaan la idinku soo deg socon weeday taasi ma soconayso dad roob noqon weeday jaalayaal calan kaliya meelka lusha xornimo lama yiraahdo Maxamed Siyaad Bar calan kaliya meelka lusha
xornimo lama yiraahdo gumeystaha dhaqaalaha uu hayo wuu jiraa dhaqaalihiisa faraha badnaa ee cadowga uu la daba taagan yahay waad u jeedaan ummadda Soomaaliyeed ama dalkan badbaadsada aan badbaadsana dalkan ama ninkii qabiil ku orkacsanayo welcome to jahannam xildhibaanada la soo dooranayo ee iimaanaya aqal sare aqal hoose wax walba ay ahaadaan ummadda Soomaaliyeed u hiiliya mar labaad ummadda Soomaaliyeed ugu hiiliya kaas ugu hiiliya mar labaad ummadda Soomaaliyeed ugu hiiliya kaas hadda run sheegaysaa mar labaad ummadda Soomaaliyeed u hiiliya dalkan shidaalkii aan la soo saarin batroolkii aan la soo saarin ya diamondkii aan la soo saarin ayaa lagu soo duulay ninkii wax qabanaya oo rajada kaliya qaar baa waxay ku leeyihiin maxaa farmaajo muxuu dadka u qabtay muxuu idin qabtay maxaad ku taageerteen farmaajo inuu hal qabiil wax u qabto Soomaaliya looma dooranbe farmaajo waxay aaminsan yihiin cid walba oo dawladda taageerta inay lacag qaataan ama lacag la siiyo no more fucking isbaaro ma soconayso aboor gaajaysan mar dama anaga marabno madaxweyne noo noqdo aboor baa madaxweyne noo noqdo anaga aboor ma lacag buu dhaafaa ya waa aragteen waxay dhigeen duumaday dalka ay u geysteen waad aragteen ummadda Soomaaliyeed ciddii aday qabiil kugu taageerayso beer la xawsi waa gooni laakiin inta runta sheegaysa markay noqoto dawladnimada iyo sharafta iyo karaamada iyo wanaaga markay noqoto waxaad u garanaysaan ya caana xale ya akhi ya xaaji ya akhi ya naaf weyn oo nal cidaad ah sidiisa loo soo dubiyo madaxtooyada la soo dhex dhigto farkeeta la koro carabna lagu dul cuno alla maxay abaar ahaayeen ayna soo galeen aboor gaajaysan bay ahaayeen haddaan u malaynaa wallaahi oo billahi oo tallahi naxdin in nasiib bay nagu soo galeen nimankaane marka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka faa'iideystay waqtigii ilaahay siiyey ayuu ka faa'iideystay haddii wax uu dhici lahaa adduun weynaha kuma qanacsanaadeen maaliyadda maanta cabdiraxmaan cabdishakuurna soo ma ahayn ninkii yidhi alal aqal farmaajo wax dhac isma lahan wax meel dhigi isma lahan farmaajo lacag inuu dhaco marabo farmaajo dhankaas wuu ku ammaanan yahay aniga maa ka keenay mar walbana waa ka hadlaa aniga maa ka keenay cabdiraxmaan cabdishakuur may waa mucaaradka ugu weyn ama ugu qaylida badan waalaikum salaam boorka حسن شيخ محمود ومركا واحد قرتها قرو من فضلا واحد قرتها إن شلي تولا وقت يكسو مري أديك أد عنب إيو لعق إيو جري إيو جبر لإيبي إيو إنه كاغلم إنه يعني كله مسي يعني وكاغلم ما ذي أديك كو أتكيس دي وأد سومالي قلبات أنا تكتب كتير دول كان دول سومالي قلبات اللي هذا ما هنا ودول إثيوبيا أي لا هاي أسكرتي وحميدو على الشباب أي كل يدي أي كل ما يسيو يعني نقول له مش اللي هذا العدنا أنا تميت كل وسجودي وسات كتيري تير سوق الله عكنا سكوك الله عسي وقتي أساسه كاغر ماضي حسن شيخ محمود أنا قاعد مانت إلى ذا مركع عاو أنت تكلب إسك صوت دوت أنا إلى ذا عيدا كقرن كالصوماليات واجب بعيدا كسارا إلى الشباب لدى عالمتان عدة إذن أمري سنة وأنا تكفير ستان كويه محاك هاقالي جني إيه روحان إيو بلاي عرفيت إيو وحي أمر عيدا كمحاك هاقالي أدي عيدا كهال دولار باد أويدي مشاركة بتقولي يكو غاري إيبستي يا كوريجا يالدي نيكا كوريجا دي محمد على الاقل فيري معارض حتى لو ما نقدان هذا ادو دي ليه محمد عبد الله فرماجو maxaan ku yiraahday walaal waa ku maasantay ciidan qaabka u dhistay barorta orgiga kabeen bunta qiyaam noo yeeray marka adduunka ka doontay subaxii hadii barunta loo sheego waxay ku leeyeen qiyaamihii baa daaqada ka soo galay balankoolka uu saaran yahay hadda yimaada qiyaamaha hal cid gaar ma u imaan maalinta adduunka ay ka doomayso hal mar waa la wada tagaya Soomaha bal alla idin ku soo yiri anagayna waalayaan kabar أنا جاي هالكن نلسو فريس أو هالكن نلسو فريسنا يا بيرلحوسي نو عيدا كقرن كمان تا واد أركتين قاب كأودك ميان قبل كأني أنا كسو جدو شبلا هوسنا وحي كجيستين مركي أسوي مدحوينا وان كسو شركة ولا لا والله هو طريق ربع أو بالله أو طلع يا حمان إي كفس إي بربغاند إي بلايو ما فهمتين أي كجيسينيين لعض هرتياد بروناس صعد أري لعض هرتياد بروناس صعد وينو بدشي
farmaajo markii la doortay 3 bilood asagoo joogay waxay noo biloobeen maxaan cunaa maxaan cabnaa maxaan dilnaa maxaan haye soo ahaatay riwaayad waxay noo keenay ciidanka gadaha laga soo saaray siday doorasho u dhacdo ya ciidanka laga soo saaray gado say doorasho u dhacdo way socon weede ikraan cadaalad watan la raadinayo haddii roob leh ya ra-iisul wasaare gundigiijiye macawiis xire haddii run uu sheegayo asaa ku yiri faad yaasiino adigaa fiiri ayagaa ku soo qoray alcadaala iyo cadaalsi afrika iyo sharma arkahan ilma adeerka ay yihiin tv-ga wakaaladda wararka soona iyo tv-ga fm-ka iyo tv qaranka iyo rooble ilma adeeradiisa 3 isku qabiila asaga ay ku qabiil yihiin ayaa fadhiistay ayagaana ku soo qoray ikraan al-shabaabaa dishay niis waxay ku soo qortaa meesha la yiraahdo twitter wax ku soo qortaa niis anagaad naga iibinaysaan miya anagaad naga iibinaysaan ruwaad idinku aad soo jisheen ikraan tahliil ha hesho ikraan cadaalad ha hesho ruwaad la yiraahdo anag noo soo jilaysaan shirqoolkii dilka ahaa ee imaaraadka shalayna faad yaasiin lala rabay in jabuuti loogu geystana ya waad ku fashilanteen wuu idinka feel garoobay wallahi wuu idinka feel garoobay أنا حسن شيخ محمود عيدا وحو سمستي لدي جري والله أو بلا أو طلع عيدا وحو سمستي إيشك إن روحان تلدي جري عيدا روحان لدي جري وسمست حسن شيخ محمود dadka ay guryaha ugu gali jireen wariya tuulooyinkan degmada afgooy hoos yimaada sida buulalow iyo doonweyne iyo taxsiile iyo 10 buund iyo waraawaale inta u dhaxaysa isbaara dadka lagu dhigan jiray oo dadka ilaa aan mooryaantii macawisle intay sheegteen waa kuwan looxda meesha ku heesta ay isbaara dhigtaan qaarkooda waa falaagadii laga saaray ciidan qabiil ahaan looga saaray macawisle ay yiraahdeen ya ay isbaara meesha dhigan jireen marka adiga koo shariif sakiin qaabdaro maxaan ku yiraahdaa wixii ku daba socda cosoble daahir geele Umar Abdirashiid al Sharmaarke xalay wuu idin la yaabay Umar Abdirashiid al Sharmaarke xalay wuu idin la yaabay markii la celiyay dadkii Djibouti daraad rakaabkii soo socday markii la joojiyay xalay English wuxuu soo qortay Twitter-ka wax ku soo qoray wuxuu yiri waxay tahay qaabdaro yiri qaabdaro in dawladnimada noocan ay noqoto xalay waan la yaabnay anaga Facebook ma laga la wareegaan sidaa waayo waxaan ka filanayna ma ahan kii mucaaradka ayaa xalay idin la yaabana Umar Abdirashiid al Sharmaarke ya adiga koo shariif sakiin qaabdaro maxaan ku yiraahdaa daahir geele cosoble ninka la yiraahdo kii gudoomiyihii hore gobolka banaadir soo noqday taabit iisoo Umar kan sisi shakuur inta madaxweyne rabta macal shariifka inta madaxweyne rabta haddii aad run sheegaysaan idinkooba geed ku soo gabanin oo gadi ciidanka laga soo saaro waxaan idinkoon marin ayaad ogolaan laheedeen doorashada inaad soo furiistaan farmaajo aad la tartantaan maal xasan cali qeyraha aad farmaajo la tartantaan waad soo furiisan laheedeen kursiga kuraasta ayaad soo furiisan laheedeen laakiin qofka markii self confident markuu qofka haysanin ay ka lunto kalsoonida markay qofka ka burburto geedahu isku soo garaaca geedaha sidii daanyeerkii geedaha maaragtay ayuu isku soo garaaca adduunyada doofaarka ugu xun doofaarka waqti la dhaafay ayuu asaga tirsadaa bisha 14 markay gaarto ayuu lugihii dhexdooda ayuu ka arkaa doofaarka 14 bisha markay gaarto ay hoos ka soo baxdo dayax markaas oo arkaa doofaarka koow tirsadaa la yiri adduun lagu kala tagiyo rabaa xasan sheekh maxamuud adeertan ciidanka qaranka ku yahay xisaab qaldan baa tirsanaysaa calculator halaysan iyo xisaab qaldan iyo balaay aan ku soconaynin no more fucking aboor gaajaysan mar dambe inayna soo galaan marka jaalayaal ikraan orkacsi ma noqonayso hadday nooshaani way soo hadli doontaa haddii sirdoonkan waxyaabahan kale la sheegay haddaan meelaha ku dilin waxaan kaloo maqlayay in hooyadeedii inay Nairobi u carartay haddii ay runtahay inay hooyadeeda Nairobi u carartay oo warkaas wax saxiix haduu yahay ilan balaayadan iyo baytul ankabutkan waxay ka soo bilaabatay Ingiriiska MI5 ka MI16 Ingiriiska badilaayay islaanta
ayagaa bashir qoolaya kabacdina waxaa leeyahay sirdoonka soomaaliya dilay sababtoo reer galbeed MI16 ingiriiska waxay ku dheereeyaan qofka ay ku shaqeystaan birika maalin sidoo runta u sheegin halkaas ay waxay ka gelinayaan cirbad qoortaas ay cirbad ka gelinayaan kow ma garat ya birin ayaga kow ka siin doona waxaana bilaaban doonta sheeka kale ah sirdoonka soomaaliya dilay ikraan hooyadeeda haddana MI16 ma qoraan sababtoo ah ra'iisul wasaaraha macwiis xere maxamed xuseen rooble macwiis xere markuu tagay Nairobi iyo markuu tagay London basaaska meeshay ka soo bilaabatay sheekada waayo farmaajo safaaradda ingiriiska xamar kun qodob buu ka diiday kun qodob war waxaan rabnaa saan loo sameyn no ma soconayso wiil ingiriiska shidaalka Soomaaliya Turkiga lagu wareejinin no ma soconayso ingiriiska wax kale nooma haystay Faransiiska Turkigaas ay colaadinayaan ay colaad ku yihiin nimankan kala danleeyda xamar fadhiyana wax kale ma rabaan wasladii iyo hilibkii wixii la cuni jiray iyo canabkii iyo naalkii ciidaad marat naalkii ciidaad neefkii ciidaad la cuni jiray waxaasay u socdaan nimankan iyo lacag ay meel ku shubtaan marka ummadda Soomaaliyeed jaalaya meel wad adduunyada ka joogtaan raggan ma xishoodaan waa danley xasan iyo gruubkiisa xitaa hadda day doorashada yimaadaan ay soo galaan waxaan ogahay inta codad ay ugu helaan dhammaantood qof walba intuu yar uu helo hadday isku keenaan hal qofood inay siiyaan ma awoodaan xitaa nimba kan kaloo iska ilaalinaya nimbo kan kaloo iska ilaalinaya isuma quuraan ayaga isuma quuraan mana la tartami karaan maxamed cabdullaahi farmaajo wuu biibay farmaajo badda u galay farmaajo wuu ashahaatay farmaajo diintuu ku soo biiray farmaajo ayaan webigu ku dabaalanayaa islaantii kuftaba farmaajo tii sakaraad noqota farmaajo iyo Fahad Yaasiin laba dameer hadda isku fuulaan number 4 banaankii farmaajo isku ka dambeeyay iyo Fahad ka dambeeyay war qofka dee doqonnimo waay 12 qofood oo walaala ah inaad hal qofood u geel qashataan hilib geel digri ay ku waashteen iyo hilib geel marka caawa aniga digi iibinaysaa Xasan Sheekh Maxamuud inaad ciidanka qaranka oo juhdi lagu bixiyay maalintii la tagay wasaaradda gaashaandhigga hal feel oo qoran oo askari leh waa la waayay ciidan 4 sano iyo wamaazada la soo dhisay iyo juhdi lagu biyo intaas lacag lagu bixiyay aad caawa aniga leedahay taliyash cidda idin amrayso waa inaad ka fiirsataan what the fuck maxaad ka hadlaysaa Xasan waad feel garowday nin feel garooba tahay dadka kale ha ku bartaan ilaa la qadarullah marajaynayo mana soconayso haday dhacdana dalka Soomaaliya madaxweyne ka noqotid dib dambe siyaasad Soomaaliya kama hadli doono aniga qudheeda kama hadli doono laakiin adigoo Soomaaliya mardaba madaxweyne ka noqday waxay la mid tahay Benjamin Netanyahu xukumayay Yahuuda ayaa boqor Salmaan booskiisa fariisan doona Sacuudiga asaga ka arimin doona magara dad dhan oo nool ilaahay abuurkii ah oo aanan gobol kale ka yimaanin oo dhul degan ayaad ciidan intaad ku soo dalbatad jiritaankooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda cagaha la dul martay halaagii gobolka Shabeellaha hoose ka dhacay aad caawani ciidan iyo soo hadal qaadaysaa goobaan la soo meehan generaal goobaan la soo meehan generaal goobaan la soo meehan ninkaad u soo wakiilatay oo dadka leefka la dhici jiray asagii ciidankii soo meehan ummadda Soomaaliyeed jaalayaal alayhi salaam raxmatullaahi gadaalka soo gashay marka dadkan ma xishoodaan niman aan meel ka wada tirsanaan jirnay mucaarad isla ahaan jirnay amba ay arin kale aan ka hadli jirnay ayaa u janjeera dadkan damujida xaqooda wariyaha hadda dibadaha ku nooleedeen dibadaha isla joognaa dhamaanteena shalay waad ka xanuunsanayseen ciidankii Xasan Sheekh markay gobolkaas wax ka geysanayeen laakiin maanta idinkoo farmaajo ku xumaynayo Xasan Sheekh
حسن شيخ adduunka waxa ugu xun adduunyadu waxa ugu xun naag nin ay ka dhaaratay oo kitaab gacanta u martay haddana biri aydan cid kala tashanin amba aanan hadaf lahayn ninka ku noqota xasankii shalay aad idinku tacsiyad aad gudanayseen gobolka shabeellaha hoose ciidanka markay idinka shalay tacsiyada gudanayay ku haay ilaahana hariis ilaahana ya idinka ku haay shalay maantana farmaajo idinku ku xumeeynaad taageer u muujinaysaa qori iyo qaaci waa la isla tuuraa qori iyo qaaci waa la isla tuuraa no more fucking abor gaajaysan mardam inuu dalka Soomaaliya ay soo caga dhigtaan shanta qaaradood adduunka maanta wax la fiirinay waa Soomaaliya wax kale indhaha lagu ma hayo dalka Soomaaliya indhaha lagu haayaa shanta qaaradood adduunka waxa la leeyahay batroolkooda shidaalkooda iyo dadkooda qaar baa anaga caawa dagaal nagula jira in uu qabateen laga qaadan ciidanka qaranka dagaal bay nagula jiraan inaan uu qabateen laga qaadan ciidanka qaranka sayna u noqonin ciidan toobar iyo tayaysan diyaarado dagaal haysta miigag helicopter haysta oo maraakiibtii badda Soomaaliya ilaalinay haysta navy leh qaar baan ogoleen adduunyada ay nagula dagaalamaysaa anigu shakhsi igu beel ah haday dawladda qalad ka gashay ama hadii sharciga uu jibiyay ama haday si wax noqdeen aniga qaranka Soomaaliya oo ma burburinayo ay shalay wuxuu sameeyay anigu aan marqaati ahaana nin kale kuma xumaynayo bariga wax lagu soo duulay ma ahan beesha uu ka dhashay Maxamed Abdullaahi Farmaajo meeshaad ka gashinay Soomaaliya ka gali doonta wax lagu soo duulay waa dalka malaa'ikta garbahooda saaran iyo ilaahaygi soo diray bisacad ay ka jecel yihiin iyo qabiilada ayaga ay taageeraan ya malaa'ikta garbahooda saaran isku qabiil inay yihiin ay moodaan ma xishoodaan marka jaalayaal meelwad adduunyada ka joogtaan ummadda Soomaaliyeed hanqalkeedii iyo wixii ayadu ay hiigsanaysay way gaari doontaa inkastoo dibandaabiyo iyo jidgooyooyin ya qodax daadsan baabadan soo ma ahayn ya dariiq dheer ayaa jira howlaha isdaba yaalo qodax daadsan baabadan ulaha u dulqaadeen soo ma ahayn dariiqi gooy fara badan ayaa jira dad waxaa jira aan cadiyahow ku cunay ama ku ciideey haddii dawladnimo la sheegayo inay ku guri ku gaari iibsadaan haddii dawladnimo ay soo baxayso inay ayagu hanti meel dhigtaan haddii dawladnimo ay soo baxayso kuwa ayagu dad ku iibiyaan dawlad kala timaadana markii wax qabad ay ku arkaanna asagoo 3 bilood dooran ay durbaan bilaabeen ay tumanayaan durbaanka maseer waxa isugu darsamay maseer directii iyo calooshii qoyaanka baratay oo gaajo noqotay ya iyo been iyo barabagaanto inta dhibaataysan dhibka Ilaaha ka saaro waalidiinteena intii dhimatay intii nool Ilaaha u naxariisto qof walba muraadka Ilaaha u saaro dalkeena Soomaaliyana Ilaahay cadawga sokeeye iyo shisheeyaha Ilaahay naga qabto dadka Soomaaliyeed geel way wada dhacaan way isdilaan laakiin markay timaado dibindaabiyo iyo been iyo barabagaando iyo waxaan jirin markay timaado waligaad runta ha ka beecan sababtoo haddii bulshada mujtamaca dhexdiisa haddii aadan runta ka sheegin reerkaaga adiga mas'uuliyadooda biri ka maalin been baad ku maamulaysaa uuna ku maamulayaa ma garad aabe dhulkii dawladda intuu madaxweyne ninkan ahaa ya marka taasi waa taa cadawga shisheeyaha sokeeyaha sharci baa qaban doona sokeeyaha sharci ayaa qaban doona shisheeyahan awood baa la isaga dhicin doona sharci caalami ayaa qaban doona ummadda Soomaaliyeed dawladdiina taageera meelwada adduunyada ka joogtaan anigoo geela barnaamijkeedina socodsiinayay waa xilli dambe 3dii ay ku sii socotaa habeenimo halkaad iga daawanayseen waa channelka Gaashaanbuurta gobolka Shabeellaha Hoose halka ayaan isku macsalaameynaa tan iyo maqal dambe iyo muuqaal dambe oo xiiso leh sida iyo amaan Allah Soomaaliya hamidoodo Maxamed Abdullaahi Farmaajo nabad ku soo noqo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.